nooc ka mid ah khudaarta aysan Soomaalida ka iloobin cuntada oo la ogaaday inuu ka hortago cudurka kansarka. Bocor gaduudka waa nooc ka mid ah khudaarta sida joogtada ah loo isticmaalo. Soomaaliduna waxay u adeegsadaan inay tayo dheeri ah ugu yeelaan cuntooyinka kala duwan sida suugada, baastada iyo bariiska. Shaki kuma jiro in qoys walba oo Soomaali ah raashinkooda maalinlaha ah laga helo bocorka oo noocyo kala duwan leh. Inkastoo khudaartani aysan ahayn mid Soomaalida oo kaliya isticmaala, balse marka laga soo tago tayeynta raashinka, bocor gaduudku wuxuu leeyahay faa'iidooyin caafimaad oo dadka qaar markay ogaadaan ku noqda kuwo lama filaan ah. Kuwani waa 5 ka mid ah faa'iidooyinka caafimaad ee ugu waaweyn ee laga helo bocor gaduudka. 1. Xoojinta caafimaadka maqaarka. Bocor gaduudka waxaa ku jira nafaqooyin waxtar weyn u leh maqaarka bini'aadamka, waxaana ka mid ah fitamiinada C iyo E. Sidoo kale, waxaa ku jira maadada beta-carotene oo maqaarka ka dhigta mid dhalaalaya oo caafimaad leh. Fitamiin C jirka uguma samaysmo si dabiici ah, sidaas awgeedna waxaa muhiim ah in laga helo cuntooyinka uu qofku qaato. Noocan fitamiinka ah waxa uu kaalin weyn ka qaataa inuu maqaarka siiyo awood si dhaqso ahna uga kabsado dhaawacyada soo gaara. Fitamiin E ayaa isagana si wanaagsan ula falgala nooca C-ga, waxayna si wadajir ah uga shaqeeyaan in maqaarka uu adkaysi u yeesho kulaylka qorraxda iyo in uusan engegin ama qallalin. Maadada beta-carotene, sidoo kale loo yaqaanana fitamiin A, ayaa iyadana maqaarka ka caawisa inuu iska difaaco fallaaraha qorraxda ee loo yaqaan UVB, waxayna maqaarka ka celisaa inuu ku gubto kulaylka cadceedda. 2. Sare u qaadista caafimaadka indhaha. Fitamiin E-ga oo yaraada ayaa lala xiriiriyaa aragga indhaha ee daciifa iyo xitaa naafanimada indhaha. Maadada beta-carotene oo ay weheliyaan fitamiinada C iyo E ayaa indhaha ka caawiya inay ka yareeyaan khatarta cudurrada soo wajaha. 3. Xoojinta awoodda difaaca jirka. Maadada beta-carotene ee ku jirta bocor gaduudka waxay isu beddeshaa fitamiin A marka la cuno kadib. Cilmi baaris la sameeyay ayaa muujinaysa in fitamiin A uu muhiim u yahay xoojinta unugyada difaaca jirka bini'aadamka. Waxaa xoogaysta shaqada difaaca marka ay jirka soo galaan tiro badan oo fitamiin A ah. Waxaa taasi sii dheer in fitamiin C-ga uu unugyada difaaca jirka xoojiyo una badiyo tirada xididada dhiigga cad. Wuxuu yareeyaa khatarta cudurro dhowr ah oo la isku dhaho metabolic syndrome. Bocor gaduudka waxa uu gacan ka geystaa ka hortagista xaaladda loo yaqaano metabolic syndrome oo ah isku tagga cudurro dhowr ah oo ay ku jiraan sokorowga ama macaanka, cayilka xad-dhaafka ah iyo dhiig karka. Xanuunadani waxay si wadajir ah u kordhiyaan khatarta uu qofku ugu jiro inuu wadnaha istaago ama ku soo boodo faalig oo afka qalaad lagu dhaho stroke. Daraasad dalka Japan laga sameeyay sanadii 2015 ayaa lagu ogaaday in khudaar uu ka mid yahay bocor gaduudka ay kaalin ka qaataan ka hortagista cudurradaasi isbahaysta. Ka hortagga cudurka kansarka. Inkastoo aysan jirin cuntooyin si toos ah uga hortaga xanuunka kansarka, xaaladaha iyo noocyada kansarka qaarkoodna aysan wax xiriir la lahayn raashinka uu qofku cuno. Haddana waxaa caddeymo loo helay in joogtaynta raashinka caafimaad leh ay gacan ka geysan karto inay yaraato khatarta kansarka. Waxaa intaasi sii dheer in dhammaan maaddooyinka laga helo bocor gaduudka sida fitamiinada A, C iyo E ay ka hortagi karaan noocyo badan oo ka mid ah kansarka dilaaga ah sida kansarka naasaha. Bocorka waa khudaar uu isticmaali karo qof walba, inkastoo dad kooban ay ku qabi karaan xasaasiyad.